maanta barnaamijkeena waxaan ku soo qaadan doonaa laba qodob oo aad iyo aad muhiim ah. labada qodobna waxay kala yihiin hogaamiyaha Soomaaliyeed ama siyaasiga Soomaaliyeed inuu yahay hogaamiye dintiisa u ordaya uusan ahayn hogaamiye ummadeed, iyo qodobka kale oo ah bulshada Soomaaliyeed inay tahay bulsho dhacdooyinka iyo waxyaalaha adduunka ka dhaca ama dhexdeeda ka dhaca inay tahay bulsho aan waayo aragnimo iyo casharo ka qaadan. Marka haddaynu ku bilowno qodobka ugu horeeya oo aynu kaga soo bilowno ilaa aasaasnimadii dowladnimada Soomaaliyeed kadib markii gumaystuhu waddanka ka baxay, waxaa aasaasmay dowladnimada Soomaaliyeed. waxaa markaa aasaasmay dowlad aan aad iyo aad u xoog badnayn oo iska tamar yar sida taariikhda ku ogtiinba. kadibna waxay ahaataba waatuu militariga waddanka qabsaday oo waxyaalaha militariga waddanka ula wareegayna ay ahayd musuqmaasuq iyo dowladdii markaa waddanka haysatay oo tamar yarayd. kadibna markuu kacaanka qabsaday waatii kacaanku in badan waddanka xukumayay oo dowladnimadeeduna intaa kacaanku ahay uu waddanka xukumayay ay hana qaaday. kadibna waatay burburtay oo Soomaali kala yaacday oo uu dhacay dagaalka ahliga. kadib waatay Soomaali halkaa dowladnimadeeda ku burburtay, soo doontaba ha u burburtee. waxaa markaa dhacay markay dowladdii burburtay in la islaayo, in waddanku kala tago. markaa Soomaalida dhexdeedu markaa soo doontaba ha isku dishay wixii waddanka markaa ka dhacay. Soomaalidu ay isku laysay oo nin waliba ama nin awood iyo xil hayay oo adeegsaday ha ahaado ama qabaa'il la kala burburku isku dileen oo saa isku dagaalka ay ku dhexmaray ha ahaadeene. waxay noqotay bulsho aan waxa loo yaqaano ka baran wixii soo maray. kadibna waatii la isku yimi, waatii wadamada dariska sida Djibouti oo kale la isku yimi, waatii dowladnimada federaalka la aasaasay. alaa kulli xaal adigu intay say doontaba ha soo martee dowladda federaalka wanaga qaadanay nidaamka federaalisinka. waatii halkaa la isugu yimi. markaa qodobkaan uga socdaa waxa weeye intii halkaa ama heshiisyada dowladnimada Soomaalida la waday in ay Soomaalidu waxa ay isku haysay aysan jirin, awal horena aysan jirin, oo caalamku uu la yaabay sababtoo ah waa dad isku diina oo isku dhaqana oo isku afa waxay isku hayaan jirin, haddana kala weeraraysanaya oo wax alaalay iyo wax dhexdooda ah haba yaraatee isan jirin. marka waxaan uga socdaa qodobka ah inay halkaa muddo la isla meeraysanayay. adigu calaa kulli xaal ay doontaba soo qaadatee waatii dowladnimada federalismka la qaatay. marka waxaan uga socdaa qodobka in Soomaalidu waxay ku heshiisay aysan sideeda u fulin, amaba waxay ku heshiisay uusan waxa loo yaqaano heshiis rasmi ah uusan ahayn, oo amaba waxay ku heshiisay aysan sideeda u qaadan. sababtoo ah waxyaalaha hadda dhacaya ama kadib dhacayba ayaa tusaale kuugu ah. marka haddaynu soo gudubno qodobkeena ugu horreeyay ahaa hogaamiyaha Soomaaliyeed inuu yahay hogaamiye ummadeed uusan ahayn ee uu yahay hogaamiye shaqsinimo iyo dantiisa u ordaya uu yahay. waxaa tusaale kuugu ah had iyo goor madaxda Soomaaliyeed waxaad aragtaa markuu xilku kasii dhammaanayo hogaamiyaha markaa xilka haya in buuq bilaamo, ama marka uu kasii dhammaanayo soo dhow yahay waqtigii doorashada ay soo dhowdahay in halkaa buuqyo ka bilaamaan, sida in badanoo ka mid a aad ka dharagsantihiin oo dhacday. marka waxaan uga socdaa sababtoo ah waxaa kan abaabulaya ee buuqa iyo wax loo yaqaano caaradnimada iyo ka dhex wada ee qaylinaya waxa weeye dantiisu u ordaya maaha hogaamiye ummadda Soomaaliyeed saa ugu ordaya. kadib kaasna wuxuu ku dadaalayaa xilka markaa haya inuu soo muddo kororsan lahaa. marka waxaa muuqata in bulshada Soomaaliyeed ay kooxo gaara ama hadba markaa intaa siyaasadda ku jirta ay bulshada Soomaaliyeed ama qowmiyadaas ka dhan inay ku kor dagaalamayaan oo nidaam ka xidhaya uusan jirin siyaasiga. sababtoo ah suu doono ayuu u adeegsanayaa ka joogaana, kana wuxuu doonayaa inuu siduu doono ugu helo nidaam darro iyo qaylo iyo foodo inuu kursiga ku gaadho. marka halkaa waxaa kaga soo baxaysa in hogaamiyaha ama siyaasiga Soomaaliyeed uusan ahayn hogaamiye dan ummadeed u ordaya, uu yahay hogaamiye dantiisa iyo dhaqaale urursi iyo sumcad u ordaya inuu yahay. intaasaana tusaale kugu filan ilaa heer federaal ama heer maamul goboleedba ha ahaatee. waxaana tusaale cad kugu sii ah hadba hogaamiyaha markaa jaaniska u helo inuu mar labaad soo laabto in uu bartii kasii uusan waxba bedeleen, oo sababtoo ah intaasoo ballanqaad uu sameeyey ayaa xilliga hore guulaystay uu sameeyey, haddana uu sameeyey bartiibuu kasii muusaya. sababtoo ah waxa weeye oo waxaana sababtaa waxaa loo yaqaano ku u sahlasa bulshada Soomaaliyeed oo ah bulsho qabyaalad ragaadisay. sababtoo ah ramuudka waxa uu ugu hayaa ama shukaanka u hayaa inuu qabyaaladda iyo
kala nacaybka inuu ku kala dhexbeero waa wixii dowlad burburka dhacay lagaga faa'iideysto la dhaho waxaasaa laydinku sameeyey sida in badanoo ka mid a dhacay shacabka markaa gaar ahaan maamul goboleedada oo markaa uu si u haysan lahaa bulshada uu saa ugu waxaas soo dhacay uu wax loo yaqaano ugu khudbadeeyo amaba uu hadiyo goor uu kala hadlo sababtoo ah hadday xayndaabka uu ku jiro ay ku jiraan ay kaga baxaan ama bulshada Soomaaliyeed ay noqoto bulsho hal mid oo hal meel ama hal mabda' leh weeye isaga khad ka baxaya marka taana waxaa u sahlaysa bulshada Soomaaliyeed oo qabyaaladda wax loo yaqaano ka hormarisay dantii guud iyo danaheedii iyo dowladnimadeedii qodobka haddii intaa kaga gudubno waxaan u gudubnaa qodobka ah bulshada Soomaaliyeed inay tahay bulsho dhacdooyinka iyo casharada soo mara aan ka qaadan waayo aragnimo taana waxaa tusaale kuugu ah had iyo goor hogaamiyaha Soomaaliyeed waxa uu la soo taagan yahay amaba wixii uu markii hore soo maray oo kusoo kaambingareeyay inuu haddana ka bedelan uusan helin uusan meeshii keenin bulshada Soomaaliyeedna ay haddana aysan ahayn bulsho shalay saa u galay amaba waxa loo yaqaan ay aragtay uu ahaa bartii haddana uga sii miisaya iyaguna ay bartii haddana uga sii sacbinayaan oo aysan ahayn bulsho kale soo danteeda ka fakaraysa aysan ahayn ana tusaale kugu sii ah waxyaalihii dhacay oo dagaal ha ahaato oo waxyaalo kale ha ahaatee inaan cashar laga qaadan sababtoo ah Soomaalidu hadday istishay caalamku iyo ummadaha kaleba way isdileen haddaynu soo qaadano waddanka Jarmalka oo kale sida uu isku dilay iyo waxyaalaha ka dhacay bal qiyaas bulsho aan muslim ahayn oo dagaal ka dhacay sida ay isku leynayso ama sida ay isku gumaadayso inuu ka daran yahay bulsho muslina oo isku afa oo isku dhaqana laakiin adigoo isku dhaqana oo isku afa oo isku diina ayaa wixii soo maray ama wixii dhex maray ka heshiin la amaba ilaawila oo ka gudbila oo dhaafila tusaale kale haddaynu soo qaadano oo Afrika ka mid ah waddanka Rwanda oo kale waxaa ka dhacay xasuuq aad iyo aad u ballaaran oo xilliyadii dowlad burburkeena ku beegnaa 1990kii ahaa waxaa islaayay oo xasuuq baanu dhex maray labada qabiile Tutsi iyo Hutuga oo aad iyo aad isku gumaaday waxayna ka heshiiyeen wixii soo maray iyo wixii dhex maray kadibna barsaasaa lagu dhaafay Soomaalida iyadoo aan xasuuq baan iyo wax loo yaqaano colaad aad u baan uusan ka dhexdhicin oo waxyaalo aad u yar ay ka dhexdhaceen haddana ka heshiin la ama barti taagan ayaad aragtaa sababtu waxa weeye hogaamiyaha kuu sheegay ayaa barti ka sii carbinaya oo hadiyo hameen ilaa maalintii waxaasi dhaceen la sii taagan saasaa laydin galay iyo saasaa dhacday saasaa nolol galay inta haddaynu labada qodob ka soo gudubno aynu talo iyo tusaale siinana waan kula talin lahaa bulshada dhalinyarada ee Soomaaliyeed ee aqoonyahanka da'da yara in ay siyaasadda Soomaaliyeed aysan sida aan soo sheegnay hogaamiyahaas aysan kaga qayb galin haddii aysan ka duwan ahayn wadin ama aysan mabda iyo wax loo yaqaano fakri siyaasiya aysan markaa rabin inay waddanka wax kaga bedelaan laakiin hadafkoodu hadduu yahay mansab iyo wax loo yaqaano nafci in aysan waxba soo kordhinayno ay la mid tahay wixii hore inoo soo maray bartiina aynu taagnaanayno inta hadda ka soo gudbo waxaan ugu dambaysiinanaa waddanku maanta meeshu marayo iyo xaalku marayo haweeye in badan ka mid ah wada socotaan in uu marayo xilligii dowlad burburkii ama 1990kii aynu maranay xilli wadaag kasto aan waxba la sharaysan ee niyadda la wanaajiyo ay tahay kiinse waxaad muuqata Soomaalidu maalinta ka dambaysa inay sii kala fogaanayso oo sii kala tagayso oo wax loo yaqaan cadawgeeda ay u kala dheeraynayso sababtoo ah tusaale waxaa kuugu ah wadamada dariska gaar ahaan Itoobiya oo bilihii ugu dambeeyay aad ogeydeen Soomaalida waxay gafafkay kula kacday hadday tahay mid diblomaasiyadeed iyo hadday tahay mid xuduudeedba in haddana aad aragtaan in weli hogaamiyayaasha Soomaaliyeed ee maamul goboleedadu ay haddana u sii kala ordiyaan oo u kala tirsamayaan sababtoo ah waxa weeye bulshada Soomaaliyeed ama siyaasiyiinta Soomaaliyeed ayaa waxaa ka dhaxayn waxa loo yaqaano wadaniyadooda sababtoo ah siyaasiga aan ku sii sheegay sifaadkiisa iyo wuxuu yahay ayaa dadkii matala oo hadday tahay heer federaal iyo hadday tahay heer maamul goboleedba waxaa muuqata in siyaasiyiinta danta shakhsiyaadka isku haya inay dantooda hadba maalinba meeshay ka arkaan ay wax loo yaqaano aadayaan ama waxay dantooda ka arkaan ay waddanka u burburinayaan oo ay u fulinayaan kusoo gabagabaynaynaa saddex ka mid ah gabay uu tiriyey Allahu naxariistay abwaan jaamac kadiye cilmi oo aad ogtiin dhowr bilood ka hor inuu arrimaha siyaasadeed amaba
sababo siyaasadeed dagaal dhex maray ummadda Soomaaliyeed qaar ka mid ah inuu u dhintay ama sababsaday ducaas oo sheegaya bulsho ama qowm haddii waxa loo yaqaano ay colowdo in adagoodu ka faa'iideysto. Duca wuxuu ku leeyahay gabayga haddaad aragtid duul wada dhasho diirka ka colooba iyagoo iswada diidanba laga danaystaaye. Yacni haddii aad aragtid duul ishaya oo dhexdooda colaadi ka taagan tahay adagooda ayaa ka faa'iideysanaya. Mar kale waa tuur Allah u naxariistee isagoo ka hadlaya siyaasadda Soomaalidu qaabka ay tahay iyo inaysan jahal ahayn. Siyaasaddu waa labe mideed Soomaaliyeed sideedaba waa nuxus. Marka waxaa kuu muuqata in bulshada Soomaaliyeed ama hogaaminta Soomaaliyeed maalinba ka dambeysa inay sii kala fogaanayso. Inta ayaan kusoo gabagabaynaynaa. Aad iyo aad baad u mahadsantahay daawade ama dhageystay. Fadlan wixii aragtiya ama faahfaahin noogu reeb. Assalaamu calaykum waraxmatullaah.